Thank you very much. I'm Somali, man. waa maalin kale oo madal u noqotay kulanka saaxiibo si online ah oo u dhaxmari jiray wada shaqayn dhanka majaajilada ah. Farxaan Diraac iyo Kim Buusi ama Ibrahim Mustafa oo Soomaalidu ay u taqaan Basadiir ayaa maanta markii ugu horeysay ku kulmay caasimadda dalka ee Muqdisho oo ay ku ballansanaayeen in mar ay ku wada kulmaan soo dhaweyn iyo taageero aan gacan ku rimis ahayn ay dadka Muqdisho u sameeyeen. kadib markii gaarigii garoonka aadan cadde ka soo saaray Basadiir lagu hakiyay afaafka hore ee garoonka si dadku ay u arkaan riyadii Basadiir ahayd imaatinka Muqdisho in ay dhabowday. gogashan ku jiifsaday hurdada goodka igu yaacay gasiinkii la idhigay waxaan gooska uga daayay dad guryihii ka yimid baa warbaas. Farxaan Diraac oo ah ninka codkiisa toolmoon ku laraa turjumaada filimada Kim Buusi ama Basadiir ayaa ugu horeyn ka hadlay soo dhaweynta Muqdisho ee Basadiir. halkan waxaanu de maalmahaanba u joognay sadar muuqda su'aal ka dhan mar haddii Basadiir ag fadhiyo waxa weeye waa dhan tahay macnaha barnaamijkan ka hadlayna waa wax iska cad. marka ayaantan bade waxaan joogay magaalada Muqdisho waxaan ku sugayay inaan saaxiibkii Basadiir ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. maantana way dhacday oo Ilaahay waa noo suura galiyay aniga iyo asxaabtayda inaan ku soo dhaweyno magaalada Muqdisho. mar kale waxaan u mahad celinayaa asxaab far ku tirisa oo anigana marka hore si weyn ii soo dhaweysay iminkana wax walba iyagu maaragtaa Ilaahay ka sokow nala fududeeyay. dhinaca kale majaajilista Ibrahim Mustafa Basadiir Dabhindis oo ka warbixiyay soo dhaweyntii koobneed ee bulshada Soomaaliyeed ayaa carabka ku dhuftay in loo maamuusay sidii madaxweyne dalkiisa yimid oo kale. Cha kwanza nafurahi sana Somali kwa mimi siwezi nikajita King Pusi bila yeye kunifanya nisijulikane Somali. midda ugu horeysa Soomaaliya waan ku faraxsanahay aniga ma isugu yeeri karo King Pusi la'aantiin in Soomaaliya la iga aqoonsado isaga u sabab ah shaqo aad u weyn ayuu qabtay wuxuu sabab u ahaa in Elborka la igu soo dhaweeyo sidii madaxweynaha oo kale taageerayaasha dhan Elborka ayay yimaadeen waxayna noo taageereen si lama filaan ah Soomaaliya ayay igu soo dhaweeyeen Soomaaliya ayaan soo arkay oo aad u dhisantay isagaana sabab u ah in Soomaaliya la iga aqoonsado ma dhihi karo Soomaaliya qof kale ayaan ku haystaa waqtigan hadda la joogo isaga ayaa ii walaal iyo saaxiib ii ah jiifkayga cunadeeda iyo nolosheeda dhan ayuu ka masuul yahay ninkii aniga wax igaga baahan Farxaan Diraac ayuu soo marayaa waan ku faraxsanahay sida Soomaaliya la igu soo dhaweeyay ilaa hadda ma aaminsani in Soomaaliya sidan oo dhan la iga yaqaano. hata yeye nashukuru sana my friend huyu amefanya mimi kiukweli amefanya mimi Somali nionekane mtu mkubwa na uzito. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie safari ndefu. Sema amin. Kim Buusi oo ah majaajilista iyo fanaan u dhashay dalka Tanzania ayaa Soomaalidu waxa ay filimaantiisa qosol kale la jaan qaadeen markii Farxaan Diraac oo ah wiil Soomaali ah oo ku soo baahiyay baraha bulshada. Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto